macallin Sunaami canugayga iskuulkaaga ma rabiyo dhahay sabab asagaa dhahay ma rabi hadda maxaa sameynaa bedel aan rabnaa haddii naxdin qof uu naxay qof kale ciqaab uu u maraayo ayagaa u mari lahaa markii kalaamkaas uu idhahay waalidkaas xitaa waxaan ku dhahay lacag bedel lagama rabo hala siiyo bedelkooda la siiye saasay ku baxeen waalidiinta abaal ma gartaan qaarkood caqabadaha aan la kulanno intaa hoosha wadno waxaa ka mid ah waalidiinta taageerada waalidiinta oo aad u yar waxyaabaha iyagu yaabka badnaa waxay ahayd iyadoo 6 sac duurnimo la maraya waxaa la ii keenay ciyaal walaalo ah leegu dhahay af Soomaaliga ma qori karaan waxna ma aqri karaan iskuul hebel ay dhiganayeen macallin oo gacanta ku qabo ciyaalkan den waxaan bilaabay hoosh la ii diray oo ahayd ciyaalkaas wax baro waa baray waxay ka soo baxeen 8aad waxay soo noqdeen dugsi sare ayagoo dugsiga sare dhiganaya maalin waxaa dhacday inay soo wacaan ciyaalka oo ooynay ustaad xaafadeen imo iskuulku waa naloo diidaa waa nigala bixinaana la dhahoyaa aamusaa ku dhahay anaa idin imaanayo waa u tegey maxaa dhibka jiro waalidkii anaga waa isku dhegannahay maxaa jiro lacagta bisha iskuulka ma awoodno waalidkii wuxuu dhahay lacagta bisha ma awoodi iskuulka iga bixi iskuulka macnaa waa idinka bixinaynaa waxaan ku dhahay waxay ahaayeen 3 arday oo kale lacag $45 laga qaadayo qof kasta $15 laga qaadayo waalidka beesada ku adkaatay ciyaalku pressure saareen ana ila soo xiriir ciyaalkii waa u tagay waalidka waxaan ku dhahay go'aan waxaan qaatay oo adag waxaan ku dhahay ciyaalkan lama bixinayo maxaa awoodi kartiin waxay dhaheen $15 awoodi karnaa anug dugsi sare dhiganayo form 2 dhiganayo calaa ardayga $5 dhabarkaa u dhigtay waa qaadanaa ku dhahay canugan ma niijabaayo waa soo wada iskuulkaa keenay siduu iskuulku dhiganaya waxaa dhacday in canuga iskuulka uu dhaho ma rabo waxaa la soo gaaray fasalkii form 4 ma rabo waalidkaa xafiiska igu imaadeen macallin Sunaami canugayga iskuulkaaga ma rabiyo dhahay sabab asagaa dhahay ma rabi hadda maxaa sameynaa bedel aan rabnaa haddii naxdin qof uu naxay qof kale ciqaab uu u maraayo ayagaa u mari lahaa waalidkaas waxanaaqay sidee baan ku dhahay ciyaalkan intaasaan kusoo tacbiilayay hadalkii istaajiyey wuxuu ahaa lacag baa ku siin jirnay anaga ma ku barin jirin lacagaa ku sii jirnay markii kalaamkaas uu idhahay waalidkaas xitaa waxaan ku dhahay lacag bedel lagama rabo hala siiyo bedelkooda la siiye saasay ku baxeen waalidiinta abaal ma gartaan qaarkoodna dhibka ay nala mareen waxaan xasuustaa iskuul weyn ciyaal dhiganayo waxaan ku dhahay iskuul 3 qol ka koobanaa idin haya ciyaalka iga soo bixiya iskuul weyn 3 qol ahayaa ku dhahay iskuulaa sameyn raba ciyaalka iga soo bixiya way ka soo bixiyeen ciyaalka oo ii keeneen marka waalidiintu isku hal ma aha caqabadaha ugu badan ee niyad jabka ugu badan dhibaatada ugu badan waxaan kala kulmay intaan mishinkan ku jiray waalidiinta ay ahaayeen waalidiinta marka waxaa ka codsanaynaa haddii canuga uu yiraahdo bedelaa rabaa bal baaritaan ku sameeya bedelkaas maxaa keenay maxaa sababay xafiiska jawaab waxa oo la imaada reason oo la imaada sabab keena wixii macquul ah waa qaadanaynaa